ima waansha qayrka imana warrami karo wadintaanka noole adigoo waraa qorin heesaha wardina tirin sidaad wada jirkeeniyo weheliga doonta kadinka intaynu saa kaabada isugu xogno uun shalmada sidaa dhaho markuu halkaa fadhiyo la eeguna indhaha wax kaga sii hadal baa furmay bay tiri soo ma kadeedni waaniga sidii yalaano gacanta babababtay haysay ma shalmadii qaado indhaha kaga siiyey alaa qabtaan buu yidhi waa maxay waxaan indhaha nagu dhufatay waar waxaan ciyaala suuqa inaga jilaafada noo dhigay bal annaga wuxuu nagu markaasunba alla waa inan tayadii faadimo waraaba inan faadimo weeyaan annaga jilaafa noo dhigaysaan iyo ruwaayad iyo makur naga daaya anigu ma doonayno waabanu jabanahay walaale ilaahi bilaahi tallaahi waxba igu dhuftay saldhigga hana la geeyo namiyad waalan tahay nimanka la xidhaa doonaysa marka la yar maslaxeen arkade ee lagu yidhaahdo waanu kuu ducaynay adeer waanu kuu ducaynay waxba noqon maysida iska tageen arkade anigoo faramaran inaan dhaqaaqayo baan idhahdaa maya saldhigga hana la geeyo anigu ma yeelayo wallaahi ma yeelayo markaa iminka adduunkii bilaa xigmad buu noqday nafsigaad gashaabaa la yidhi waadan buu kugu gadootaa intaa wuu ku daba gaambiyaa gaadhna kaa yahay waxaad gaysatuu kaa guraa goorya ayaan dukaan buu fadhiistaa dukaankii ugu horeeyay Hargeysa caana buskud la ridqo hadda waa mashiinkan caanaha lagu shubo markaasaan uu isagaan u dan leeyahay wariya koob caana buskud ay ridq waa la ridqaa inta kulba caana buskud ku ridqayo waxba ma sheegay in dukaan ku fadhiistaaba qolada ku qayisho weeyaan aniguna waa anigan deexa ku maqlama islaha ka soo daba baxay moogtay ilaahay baan ku dhaartay anigoo dhiigaygu boqol yahay ayaan Hargeysa soo galay soo maad garan gabadhii Canab baa la oran jiray waan la culuubay magac Canab la yiraahdo dhanbaaba la culuubay waa tahay Faadimo waxaad ka dhawaajisay inay dhanka kale dhanka jacaylka iyo arrimaha bulshada iyo dhanka kastaba siyaasadda ay ka badan yihiin jacaylka saddex horta jacaylka dunida cid aan jacayl soo marin ma jirto dadna way qarsadaan dadna way cadaystaan hasan noqotay horta dunidu way iswada jeceshahayo de imkaba hadaynaan kal gacal iyo jacayl isuukin jirin ilmaynaan sar fadhine deris lama ahaadeen wada lama wada mareen marka wax weyn jacaylku horta wuu badan yahay laakiin jacaylka nafsiyanka ah adiga qofku u gala kan had iyo jeer mahadada kugu reeba waa ka ku hirgali waaya ka ku hirgala dawaabad haysaa maxaabad ka sheegi samaad garan imka waxaan arkaa meelaha buug jacayl lagu furaa laakiin waxaan maqlaa jacayladaydi baan maqlaa waxaan oran lahaa ereyada hoos loo dhigo oo buugga hal la iibsado xigmadiisana hal la akhristo waayo xataa waxa jira dad aan isba qabin ba meesha isla imanayo oranayo waa jacaylkaygi barina in isguursanaa la garan marka anigu jacaylkaygi horta hadaan de maanta waaya ilaa imka jacaylkaygi aan calafka u helay kama sheekaynay laakiin kuwii aan ku soo turunturooday dad badan haday doonaan ay qarinayaan qaarna kaba warrameen haddaan anigu ka warramo anigoo 12 jir ayaa inan aanu saaxiib nahay nin jeclaatay dabadeedna waxay iigu dhiibi jirtay kolba warqada u geebay oran jirtay anna inaan ninka warqada u geeyoon do hor fadhiistaba ama hor tagaba ceeb bay dareemay sawir bay iigu dhiibtaa sawirka 7 cisha la sugi jiray halka waxa laga gali jiray cali aboola iyo fooqani makaa'een daryaal la yiraahdo ka horjeeday in Umar Haash dabadeedna wallaahi dabadeedna markay 7 cisho ay ku jirtay maalinta ay dhiibta waxay ku tiraada u gee xabeemka shakhsiga magaciisa soo qaadan mayno dabadeedna intan gaaru wadi jiray uma dhiibo intan jeexjeexa ama sawirkii tuura iskaga tagi jiray marka muxuu ku yiri maad u tagtaa waan u tagay oo muxuu ku yiri wuxuu yiri anaa way manaya been baa sheegay barigii dambe bal amarka ilaahay maalin aniga iyadiyo gaadhiga ag marayna buu yiri sahray wayna sahra la yiraahdo kaale iigu dhiibeen wuxuu yiri go'a iyo dharka walaalihi soo maydhileen dad isbartoo dhalinyaro aan nahay waa darawal dharkii baan qaadno go'ibay la hadhay dharkii kale intay soo maydhay bay aniga ii soo dhiibtay go'ibay la hadho habeen iyo maalin way barkanaan jirtay gabadhii baan jees ku diri jiray naaya akhas ale waxaan jeclaa ninka go'a soo si ku oran jiray waxay halkii martaba maalintii dambe anigoo dukaan dhex jooga ayaa nin waxa soo galay aan qiyaastii aan u dhowriyo 10 jir baanahay aan imika qiyaasayo kolkii inuu 45 jir ahaa dukaankii buu ku yiri saacada halka ay sud
saacadihii bay inantii dukaanka hayse ka qaaday anuu ninkii markaan saa weegayba dhac qalbigii baa dilaacayba waad ka heshay waan ka helay wuxuu xidhay macawis yaroo gaaban iyo koodhka weyn kowdhi ninkii way igaga dul dhacday isna uu gaari buu leeyahay haasan noqotay markaa waa jiilaaloo biyaha booyada la dhaamiyaa dabadeedna dukaan buu fadhiistaa dukaankii ugu horeeyay Hargeysa caana buskud la ridqo hadda waa mashiinkan caanaha lagu shubo ee lagu ridqo iyo buskud abu walad la oran jiro tanag lagu keeni jiray kan imka kartoon buu ku jira wiil yar baa ku sawiran ka tanag baa lagu keeni jiray iyo caanahaas la isku ridqi jiray dukaankaas uu fadhiistaa dukaankii baan maalin walba soo galaa markaas aanu ilaa isagaan u dan leeyahay wariya koob caana buskud ay ridq waa la ridqaa inta kulba caana buskud ku ridqayo waxba ma sheegeen ku dukaanku fadhiistaaba qolada ku qayisho weeyaan aniguna waan igan deeha ku maqlama islaha ka soo daba baxay moogti waan iga war caana buskud ka ridq waa la ridqaa waan baxa halka markan sii socdo saydooyma waan soo daymo wax cidibayga ma soo daba bixin koobkii baan gidaar la fadhiistaa waan cabaa haddana waan soo noqdaa war koob caana ay ridq sawtii marka lagu ridqay dad baa lahaayeen u geeyay haddana ay ridq waa la ridqa inta hadalkan dheeraynaya markii dambe waxaan arkay inaan u soo baxay si alla saan yeelo waan garan waayay marka ninka xaaskiisu wuxuu degan yahay meesha la yiraahdo Saaray oo u dhaxaysa kala baydhka iyo Gabile mii beeru ku leeyahay halkaas reerkiisu degan yahay habliisi carruurtiisa bay ilaaleen barada jacaylku in cajiib yahay waaniga marka qolo halka salbateer buu la gari jiray guri buu la gali jiray nima salbateer moogtay dabadeedna galabtii markay meelaha todobada tahay waxay fadhiisan jireen albaabka hortiisa galab walba sii hormar waxa kale oo jirtay farmasiiba ka soo horjeeday farmasiiga ma galab walba ku iraada markaas bay iguna salaama Faadumo nabadina adeerun bay igu yiraahdaan nabadu baan ku iraada waxaan karoon dukaankan gala farmasiiga soo kor dawadii jilbaha ma haysan ma soo bay igu yiraahdaan inay yar baaba tee jilbana kuma xanuunayeen orayoydeeba noo soo dirtay naga iibiya dadka ka garaac awge marka halka mar dhaxdan ku tuura barigii dambaan inaan qaali la oran jiray marka dhimatay Allah u naxariistay Allah tashaday waxa la huwan jiray shalmado saddex faraq leh oo daba dheer iyo laba hareerood leh oo yar culculus soo raamanaha ay ku tirinayaahe na qayla gardhawaysa kadinka intaanu saaysu kaabada isugu xogno oo shalmada sidaa dhaho markuu halka fadhiyo la eeguna indhaha wax kaga sii hadal baa furmay baytir soo ma kadeedni waaniga sidii yalaano gacanta babababtay haysay ma shalmadii qaado waa mandha kaga sii Allah qabtaan buu yiri waa maxay waxaan indhaha nagu dhuftay waar waxaan ciyaal suuqa naga jilaafada noo dhigay bal anaga wuxuu nagu markaas Allah ila waynan tayadii Faadmo waraaba inaan Faadmo weeyaan anaga jilaafa noo dhigaysaan iyo ruwaayad iyo makur naga daayay anagu ma doonayno waaba nu jabanahay walaale la bilaay talaa waxba igu dhuftay saldhiga hal la geeyo saldhigiyo barigaasi waa xilligii dawladii militariga ahayd dadkiiba way ka cabsoodaan saldhiga qof walba wuxuu igu yiraahdo naqalladii kugu dhacday miyaanad raashaqi saxaaq ahay namiyad waalan tahay nimanka la xidhaa doonaysa marka la yar maslaxeen arkade ee lagu yiraahdo dawaan ku ducaynaa adeer waan ku ducayn waxba noqon ma sida iska tagaan arkade anigoo faramaran inaan dhaqaaqayo baan iraahdo maya saldhiga hana la geeyo anigu ma yeelayo wallahi ma yeelayo saldhiga hana la geeyo Soomaad garan wax la wadaba nimankiiba markii dambe gacanta i qabtay waa la iga kaxeeyay waxa loo ii bilowday ma jirto dabadeedna dukaan buu hadana fadhiisan jiray gabadh canab la oran jiray inamtii aan saaxiibkayn baan u ka haysta dukaankii baan galaaxan ku yiraahdaa ayaahe hadda waa ninkii ma fadhiyo ninkani dukaankan uu fadhiistaa naagtan xun buu malaha doonayaa huruuf naabal walaal buskud naga iibi anna waxaan ku maqanay tii la socotay indhaheeda bal inay huruuftamayso marka dibadda u baxnaan waa niga ku eegina ma baad huruuftamen de maxaan iraahdaa gabadh waxba ma oran dig labadaydiba istilla naaw waxay sheekadii socotaba ninkii gaarigii buuri buu saaray haday booyad ahayd wuxuu u baxaa wajaale aroortiina wuxuu ka soo qaadaa haruur iyo dumar habas u qaadi jiray awowgay baan ku dhaawo الله وحير أنكو شقيستي سي قركينا كنا نقول معي أو بيرتي باصيدي وحيد وين كنا نقول مرة بي العجر أنكو شقيستي سي أو وحن كعلى بيري يعني الله شيء ده سكول كي توان كتير ما قرنسا سي حاجة بيسي وأنا وحن كوري ها أنكو شقيستي أو العكتي أنكو شقيستي العكتي بيسي قالي قلبني من هالكن كراعي
wajaale weeyaan cid kama aqaan ma garanaysaa kolba xaafad baan ku idhaa meel seexiyade ilaa magaaladii waan ku cusbo ma garanay markii dambe laakiin jid baa ii baxo hablaan isbaranay markaa hadhuurkii yaraa anigu waa 5 galaan ama 3 galaan waxaan sitaa tunkan soo markaa maxaan sameeyay galabtii markuu baxayay kursiga isaga xiga ee kursiga gaariga shirku waa 3 sabaaxiyadii hore kursiga isaga ku xiga ayaan fadhiistaa dabadeedna ka kala daaqada xigana qofkii soo kiraysta sidan subax walba xagaasan ka soo raaca galabtiina xagana ka sii raaca dadkiiba xitaa waxa kirishbay u ah nin ay naagtiisa walaalayihiin waxa si ma muuqdaan dadkiiba igu yiraahdaa na qofkani ma siiga baabuur baynaade galabtiina way sii saaran tahay casarkiina subaxiina way soo saaran tahay waxna cidna uma sheeganayo wuxuu yiraahdaa in adeertay waa nagi barigii isku dhacnay aabahay isku dhacabo waa aniga halka waxaan ku iska fariist maalintii dambe baa kala baydhka de raashinka iyo dadkaba waa la dajiyo waa la baaraa aniga intaydu waa dhowr galaan cidina baaran maysa dawa wax yar oo de waa la miisaamaan waa la cashuuri jiray intii aan ku maqnaa dhulkii baan soo noqdayo bartii anigu afadhiyay darawalka ku xigto naaga fadhido ree kala baydh naga soo raacday markaas baa laygu yiri asuma nayaahe indhahaygiiba markiiba siglan bixiyay nayaahe naag kursigaana fadhiyay iga soo dago kan soo fadhiiso naya gaariga lacag baan ka bixiyay dad fadhiisanaysa ka fadhiisan bay tiri gaariga lambar baa kuugu dhagan naaya lambar baa gaariga kursiga noogu dhagan anaga nagu ogyahay kursiga anagu baa sii kireysano soo kireysane noo badne miyiga yeelaysaa isna wuxuu yidhuun in adeertay soo fadhiisa halkan kan caadiga daaqada xigaba iska fadhiiso maalin dambe micida ka fadhiisan mayse ilaahay baan ku dhaartay anigoo dhiigaygu boqol yahay ayaan Hargeysa soo galay soo maad garan gabadhii Canab baa la oran jiray waan la coloobay magac Canab la yiraahdo dhabbaaba la coloobay anigoo jacaylkayga halka maraya adduunka ilaahay oo kadeedkii adduunka isugu ka yimi oo hotel halka ku ooli jiray oo magaalada ugu shidnaan jiro caanaha riyaa ku ooli jiray habeen walba isaga daraadii ugu casho taga bay habartay Sacuudiga ka timi habartay batiri in maray waxaan soo eeginaa abtigay oo baar dheer jooga waa meel baar dheer leh xuduudka Kenya Soomaaliya buulaha xagaa ka sii xigta xisaabiye guudka ah batiri in maray abtigaa baan soo eeginaa iyadana walaalkeeda moogti halkan bagaariga ka xaysa Allahu nabi ilaa baan ku dhaartay waran way igaga adkayd maalintii halka aan ka baxnay marka xamar baanu 2 bilood joognay oo fanaanadii weynayd Allahu naxariista Saynab Xaaji Cali Baxsan waa yaa meesha gali jirtay moogtay marka imika adduunka bila xigmad buu noqday nafsigaad gashaabaa leeyahay waa dambu kugu gadootaa inta uu ku daba gaambiya gaadhna ka yahay waxaad geysato ka guraa gooriya ayaan waxaan garanayaa inanka marka adu alnahaaya inankii jacaylkiisa halkaas ku soo iloobay markii dambana isaga oo reer kala samaystay oo kii kale ku labeeyay oo leeyahay iska joogtay ka labaad baabad noqon lahayd oo laakiin aan soo meeyrmay ayaan soo noqday hasan noqotay waxaan xasuustaa inaan aniga bari jeclaaday oo de wallahi waxaan garanayaa de heesaa la isu diri jiray ma garanaysaa heesaa jacayla la isu diri jiro qofka nacam qofka ximadu halkii ka taagan tahay aad ku cabirayso ma uu isagu soo diray alla ilaahay jacaylkii jidbuu iga furtay jifiyo joogbastiide meelan jid marin baan keligay jiciire ayuu heestaas soo diray أنا وحن أدري إما وشقيركا إما ورمي كرو ودينتان كنولي أديغو ورا قرين هسا وردنا تيرين سيداد ودا تشيركينيو وهلي قادونتا هدانا هسا وردي كولو غين كرين ورقدنا قري كرين maxaad adigu doonaysaa ma garanaysaa wuxuu soo diray hees maxamed wardi qaadi jiro Allahu naxariistay oran jiray ma taqjalil ya samha qul ista'jalil atashti qalbi kull yawm tigamali عديني كلمة وسامحيني وداولي خلاص
كبرت وليتي 17 سنة عمر سور عمر القرام وعمر المنى أسمعنا يوم جدنا حبنا في الأميرة والبقية قلبي دائما كيسوى يقوض بحيني